islaantii gabadha yar 14 jirka ah sida ay u gogoyso jirkeeda oo heer ay gaartay cawradeeda ama xubinkeeda taranka ah mindida ka gelisay bani aadamnimo xumo iyo jurxumo halka ay ka gaartay darteed shalay arrin baa ka soo korortay maantana arrin kale ka soo korortay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaamayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel ka soo dunida ay ka joogtaan. Waa walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen. Waan rajaynayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu mar kale dib inoo kula siiyay isagay mahaddaasi oo idin u sugnaatay inta dhiban Allah ka dulqaado inta isugu toosan tahayna Allah u barakeeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaamna aan ku wada salino. Ma doonayo muuqaalka idin idinku dheereeyo ama khudbad dheer ah idin galo. Waxaan rabaa dhowr arrimood oo kooban inaan ka wada hadalno isla markaasina qof kasta wixii arinta uu ka qabo fikirkiisa qaybta comment uu la wadaago. Fadlan channel-kan cusub ee Cabdullaahi Dowlo ayaad igala socon doontaan hadda kadib. Waan rajaynayaa inaad subscribe iso ari doonto, muuqaalkana meel dheer noo gaarsiin doontaan, noo share garan doontaan, isla markaasina aad noqon doonto xabiibkayga dhow halkaan igala socdo. Rukumo channel-kan si aan halkaan hadda kadib ugu wada socono maadaama channel-kii hore cilad ay naga timid dhanka arrimaha Yahuudda waagi aan ka hadli jiray. Marka hore adinka halka ay gaarsiiyay maantana waan rajaynayaa inaad igu sii tiro doontaan bidnillah alkarim. Aad baa u mahadsantiin walaalayaal. Sida aad la socotaan gabar yar baa waxa lagu dilay oo lagu dhibaateeyay oo waliba maamo islaan ehel ah oo ayada laftirkeeda 12 caruur dhashay ay ku silcisay ayadii ninkeeduba iskugu tageen oo ku silciyeen magaalada Gaalkacyo. Arrintaas qof Soomaali oo aan ka warqabin ma jiro inta hadda baraha bulshada aan wada joogno. Markii hore arrin baa ka soo korortay oo dilka kadib maxaa la ogaaday oo soo baxay in islaantan ay caado u ahayd ba dhibaateynta dadka duruufeysan ee duruuftu ay ku kaliftay inay iyada u shaqeeyaan. Gabar Oromo ah oo u shaqeynaysay ba hadda kor waxa la sheegay in ay biyo kulul ku gadisay oo ay ku shubtay. Ninkeeduna goobjoog ka ahaa dhibaatadii gabadha yarta ay gaartay dadkii la tacaalay caafimaadkeeda gabadha reer Itoobiya ah oo u shaqeynaysay oo goobjoogayaal ahaaba cadeeyo sheegay in lacagtii gabadha lagu daaweynayay ninkeeda uu bixinayay. taa micnaheedu waxa waaye inuu raalli oga ahaa. sababtu maxay tahay? waayo hadduu san raalli oga ahaan lahayn qalad dambe ma isan gali lahayn way ka istaagi lahayd. kiiskana wuxuu noqday kiiskii labaad ee gabadha yarta ah inta lagu gowracay jirkeeda lagu jarjaray dhibaatada aad aragteen lagu geystay gurigeedii macnaha ay ku dhaxaysatay. dadku arrimo kale ay sheegayaan oo saddexaad laakiin taa ilaa aan soo xaqiijiyo kama hadli doono. tan la soo xaqiijiyay laakiin waxa waaye waxa la sheegay gabadhan yarta ah dhibaatadu intii ay haysatay dhowr jeer bay dacwootay oo dadka dariska ay u dacwooto oo ay tiri walaalayaal dhibaato noocan ah ay haysata. cudurkuna sidiisaba ka hortag buu leeyahay. arrintan runtii waxay soo shaac bixisay dad badan oo dhibanayaal ahaa oo cid u shaqeynayay oo guryahooda joogay bay arrintaas maanta ay kalsooni badan ku abuurtay fursadna ay u noqotay codkoodu maanta uu banaanka u soo baxo. gabadha yarta dhowr jeer bay dacwootaa la yiraahdo dariska u dacwoon jirtay oo dhihi jirtay gabadha way dhibaateynaysaa maamadan dhibkaas ay ugu haysaa anigu aabba ma haysti rajay baan ahay hooyo ma haysti cid kale meeshan iima joogto ayadaa ehel iigu dhow maamadan iga qabta igala hadla cid kala hadashaa ma isan jirin. soo marka dadka dulmanayaasha ah ee dhibaatada la nugul ee dhibaatada guryaha inoola jooga maanta waxay inooga garheleen anaga haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed kale markii aan dhimanno qayl maxay noo taraysaa haddii dhibaatadana markaan sheegnay baa waxba laga qaban. runtii waa meesha maanta in looga garhelay waa gabadhaas inta aysan dhimanin ka hor waxay sheegataa la yiri inta soo dhibaato ah way sheeganaysaa laakiin haba sheegatay macnaha waxa la weydiinayaa ninkii baa la weydiinayaa oo leeyahay warniyo gabadha dhibkaas ay sheeganaysaa maxaa dhaca maya war gabadha dhibaato ma qabto kaale adeer kaale ma dhibaato qabta maya bay leedahay gabadha dhibaato ma qabto. islaantii baa la weydiinaya oo maxaa dhaca gurigeedii bay joogtaa bay ku leedahay. war qofka dhibanaha intaad qof kale oo dumar u dirtaan qofka la fariista oo wax wareesta ida maxaa kugu dhacay habar sidee wax ku gaareen bal kaalay fariista qofka hala fiiriyo waa qof dumara fiiriya. laakiin mar qofkii inta la dhibaateeyay la gowracay jirkiisii dhibaato ay soo gaartay dunidii uu ka tagay inaan qaylino ama aan oyno ama aan ka daba hadalno waxba ma soo kordhinayso laakiin waxa ay difaac u tahay in dhibaato kale aysan ku dhicin qof kale oo dhibaatada la nugul in aysan dhibaato kale ku dhicin. marka waxa lagu leeyahay islaantan caadayba u tahayba dhibaateynta maxay ahayto dadka ayada rabbigan uu soo baday ilaa ma ogtahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ka uu leeyahay walow basata Allahu rizqa
لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ما أنت حدي قف أبا هذا أنو جري لهن دونيدان إلهي سبحانه وتعالى الدومدي إساق أيا قلوبته ذا مامولا دونيدا قف أبا هم هدي لوايو وحبا معقول أهان لهد أمدو إنه يبو ذا كبران وحتى ماشي أي كبح ذا وح ربي عابده وحتى لوايو وضدكو ربي كو ذا عاسيان وعباداتك ربي كان يكو ذا الأحلام أيا معقولة سو مركا إلهي سبحانه وتعالى إساق أيا قلوبتان مامولا إلهي سبحانه وتعالى هو أودا دونيدا أن تدك تسارن ودان إنه وذا تاجرين كدقو oo dad lacag leey uu ka dhigo ganacsato uu ka wada dhigo dad wax haysto uu ka wada dhigo laakiin waa qadar rabbi oo ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga ayaa yaqaan adoomadiisa qaabka uu wax ugu qaybinayo soo marka qof rabbi ku soo baday maanta oo gurigaaga inuu kaaga shaqeeyo oo dhulka uu ku tirtiro oo cuntada uu ku kariyo oo jikada uu ku galo musqusha uu ka soo dhaqo duruuftu ay ku kaliftay maanta qof lacag haysto maanta ما أوصل سمين لهن إنه أنتوا جوري جاي إمادو جيكا كوجلو وحكو ترترو ما أوصل أقولان لهن لكن بقدر ما يشاء إلهي سبحانه وتعالى مركا الدومدي سجى أي ساء وما عملوا قلوب تودا قف مركا أي ظروف كان تي إن أضنع عودي بعد تيسو سحمة مركا إسلام تنوح الجولة هي نينك هذا وحي عادة كدكتين ظروفها إنه وقفها إذا دتك ربي وصاب ضي إن يجا يكون صنع الله والعياذ بالله والعذر كان daweyntiisa ka hortagiisa intuusan soo gaarin baa ka wanaagsanay qofku markay qof dariska markay dhibaato noocaas ay la soo diristo yaana laga aamusni qofka si hoosaha loo wareeso daris baa leeyahay ikhtar aljar qabla dar guriga aad degayso quruxdiisa waa inaad fiirine dadka kugu hareeraysan dariskaaga waa inaad iska eegtaa wanaagooda marka dadka darisku waa ilaal aan la dirsan wax kasta way ka warqabaan laakiin darisku waa inay noqdaan daris sida caruurtooda ay uga dhibaatoonayaan uga damqanayaan ugu damqada dhibanaha kale ee guriga jooga waa inay noqdaan marka gabadhaasu in badan Allah u naxariisto in badan bay soo cabataa leeyahay in badan bay maamada ka dacwootaa leeyahay in badan bay qoyska ka dacwootaa leeyahay in badan bay caruurtii ay dhaleen xataa ka dacwootaa leeyahay laakiin cid ka hoos qaado waa la waayay ugu dambeyntiina maxaa dhacday si aan sheekadanba u sii balbalaaran in gabadhii la qurgooyo oo dhibaato halka ka dhacdo laakiin dad baa waxay leeyihiin sabab baa jirtay gabadha loo dilay gabadhu way garaaci kartay si kale oo la macaamili kartay waxay ku ciqaabi kartay shaqada laakiin arrin baa jirtay arrintaa jirtay ma doonayo qof weyn baan ahay inaan ka hor dhaco laakiin waa soo dul istaagi doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo waraad baa u mahadsantiin walaalayaalow channelka rukumo subscribe garee like isar marka horena adinka halkaan soo gaarsiiyay maantana waan rajeenayaa inta ayinka